Cabdullaahi waxaan ku hayaa sheeko xiiso badan sina ku muujinaysa in adduunku horumar qaab daran uu ku talaabsanayo shirkad ayaa waxay raadinaysaa shaqaalaha haween ah waase haddii ay doonayaan in guryaha ay nadiifiyaan iyagoo qaawan oo aan wax dhar wadan lacagta la sii doonan oo ku haya iyo xeer u gaar ah oo shirkadaas ay dejisay haddii dhar qabto shaqaas looma ogola ayagaa raadinayo laakiin shirkadan waa shirkad dalaala marka koowaad ayadaa dadka shaqaalaysanayso kadibna qofkan shaqada loo diraa kadib qofkaas macaamiisha lacag laga soo qaadi doonaa qofkaana saacadii lacag aan caadi ahayn ku shaqayn doona shirkadda fadhigoodu yahay caasimada London ee dalka England ee la yiraahdo Northeast Clearance waxa ay haatan noqotay shirkad aad ugu weyn dalkaas si weynna macaamiil u soo jiidata waxaana ku xiran shaqaale iyo macaamiil aad u fara badan si kastaba ha ahaatee shaqaalaheedu haba yaraatee wax labis ama xirtaan waana haween intooda badan waxayna kugu adeegi doonaan shaqaalahaasi fadhigaada shirkadan la yiraahdo Northeast Clearance waxa ay haatan raadinaysaa hablo u shaqeeya iyada kuwaasoo la hordhigayo shuruud cad oo la xiriirta inay waajib ku tahay inay iyagoo qaawan nadiifiyaan guryaha shakhsiga loo leeyahay ama gaarka ah hablahan waxaa loo ogol yahay inay xirtaan keliya dacas iyo gloves marka ay wax la nadiifinayo libis kalena ma xiran karaan sida ay dhigay ama sida uu dhigayo xeerku u yaala shirkadan la yiraahdo Northeast Clearance ee ku taala magaalada London ee caasimada u ah dalka England haweenka doonaya shaqadan wax shuruud ah lagu xiri doono sida inay da'deedu weyn tahay ama inuu miisaankeedu badan yahay haddii labadaas shuruudba haddii aad da' yar tahay iyo haddii aad da' weyn tahay laguma eegi doono haddii miisaankaadu uu yiri haddii miisaankaadu meelaha qaar shaqooyinka waa la isku eegaaminaa inaa culus tahay haddii aad culus tahay shaqada qaban karin jirto marka caadtaana shaqada qaban karin ma jirto laakiin dadka caadada mar walba waa u fududaa shaqooyin badan helaan aad iyo aad haddii aad diyaar u tahay haddii ay jirto qof diyaar u ah shaqadan Cabdullaahi oo saacadii waxa la siin doonaa 45 gini oo u dhiganta $57 saacadii ku shaqayn doona waa guri nadiif oo kaliya marka haday 6 saacadood qawnaa $300 iska bixi hadiya lacagtaasi waa midda shirkadu ay ku siin doonto adiga waxaana la leeyahay shirkadaani waxa ay ka soo qaadan doontaa macaamiisheeda 55 gini halkii saacad oo qof ayada ka socdo uu adeego sidaas darteed saacadii shirkadan waxay sameyn doontaa 10 gini oo faa'iido qof walba 10 gini oo faa'iido ka sameyn doontaa saacadii si kastaba ha ahaatee shirkadan lagu magacaabo Northeast Clearance waxaa u degan siyaasad dhigaysa in macaamiishoodu aysan taaban karin jirka hablaha shaqaalaha ay qaawan u shaqeeyaan sidoo kalena aysan ka qaadi karin wax sawir ah ama aysan ka duubi karin wax muuqaal ah haddii arrintaas ay dhacdo maxkamadda lagu tiigsan doonaa shirkadan ayaa intay qaawantahay hal sawir ku dhufat haddaad hal sawir ka qaad ama muuqaal ka duubto ama jirkeeda aad taabato maxkamadda lagu tiigsan marka ujeedada oo shaqaale qaawan loo raadinaa meesha muqaddam haddii la yiri sawir lagama qaadi karo muuqaal lagama duubi karo lama taaban karo ujeedada kale loo qaabinayo ujeedada kale oo qofka loo raadinayo indhaha ka fiirso Laura Smith oo ah aasaasaha shirkadan ayaa waxa uu sheegay inay haatan ku fidin doonaan United Kingdom oo dhan kadib markii ay u yimaadeen codsiyo fara badan